Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada YouTube channel keena Somali Youth Scholars. Haddii ay tahay marka kugu horeysay oo YouTube keena soo booqatay soo dhawow. YouTube channel keena waa YouTube channel aan ugu talagalnay inaan walaaleen Soomaaliyeed aan ugu soo gudbino sida loo xariisto deeqada waxbarasho iyo sidoo kale sida loo helo fiisooyinka dalalka Mareykanka iyo sidoo kale dalalkani Europe, Canada. Insha Allah waxyaabo la mid ah ayaan ku soo gudbinaa. Haddii aan u gudagalno maanta mowduuceena insha Allah waxaan isla eegi doonaa sida loo buuxiyo form lagu magacaabo DS260. marka koowaad hambaliyo walaaleen Soomaaliyeed oo ku guuleystay sanadkani baqtiyaan nasiibkii DV Lottery-ga. hambaliyo ayaan idin leeyahay mar labaad. waxa waaye baqtiyaan nasiibkan waa dadka aan ogeyn, yacni waa baqtiyaan nasiib sanadla ah oo ay bixiso dowladda Mareykanka oo ku sahlayo in aad dalka Mareykanka aad tagtid. insha Allah waxa isla fiirin doonaa formkan iyo sida loo buuxiyo dhammaan wadooyinka aad mar lahayd sida ugu fudud. waxaad booqanaysaa si aad u buuxisid formkan DS260-ga website-kani. insha Allah website-kan qaybta hoose ayaan soo dhigi doonaa linkiga si aadan ugu wareerin. qaybta hoose insha Allah aad ka heli doontaa. formkan si aad u buuxiso waxaad u baahan tahay case number-kaaga. saan rajaynaya dadkani oo u soo baxay DV Lottery insha Allah way fahmi doonaan, kulli waa fahansantihiin. saan rajaynaya case number-kaaga wuxuu yahay iyo sidoo kale confirmation number-kaaga. confirmation number-ku waa number-kii markii aad result-iga jawaabaha aad fiirsanaysay number-ka aad ku fiirsatay. case number waxaa la yiraahdaa confirmation number-kaaga. case number-kaagana waa number-ka hadda ay haysatid, yacni oo number-kan wuxuu yacni matalaya yacni number-ka aad ugu jirtid guuleysiga. yacni mesela sanad walba waxay soo aqbalaan ilaa iyo dad gaarayso 80,000 meelahaas gaaraya, laakiin waxay ka qaataan 55,000. marka adiga dadkaas 80,000 50,000 5,000 numberkee ka tahay 1 ma ka tahay 2 ma ka tahay 3 ma ka tahay 4 ma ka tahay 100 ma ka tahay 2,000 ma ka tahay 50,000 ma ka tahay. marka case numberka waxaas uu sheegay, numberkaas uu sheegay. haddii ka tahay 100 case numberka haduu yahay 200 macnaheedu waxa waaye yani qofka 200aad ayaa tahay guuleystaha qofka 200aad. sarjana waa fahantay. insha Allah case numberkaaga wuxuu ka bilaabanayaa yani mesela 2020 AF soo waxaa la socoto 0 0 la socoto. marka 3 0 ha ku darin oo ka bixi 3 0 waxaad qortaa numberka oo nadiif ka dambeeya. maxaa jira mesela 2020 AF 000 100 ka soo qaad case numberkaaga waa sidan. marka waxaad sameynaysaa zeroinkan script waxaan qaataa 2020 AF 100 sidaas form case numberkaaga ku gelinaysaa. then waxaa leedahay continue. so marka aad I continue adheed wuxuu ku keenayaa meeshani. insha Allah waxay gelin doontaa meeshan case numberka soo gelin waa kana magacaaga u dambeeya. mesela hadii lagu dhaho Yusuf Ali Muhammad waxay gelinaysaa magacaaga u dambeeya Muhammad ka gelinaysaa. ka soo qaad magacaaga u dambeeya waxa waaye magacaaga Ali camal ka soo qaad mise Abdi camal ka soo qaad. magacaaga waxa waaye Abdi. meeshan waxa idin ku tusi doonaa tusaale yani sidee يعني aniga si sax meesha uma gelinay yani information aniga hadda numberkan case numberkan waa case number yani been meeshan ku qoran tusaalan si ay u fahantiin dhawad processkan wadadayna u martiin. marka sarjana waa ila fahanteen. marka application numberka surname-kaaga mise Abdi waaye. sidoo kale meeshan waxay gelinaysaa taariikhda aad dhalatay. meeshan waxa waa day maalintii 4 bishii maalintii 5 taariikh 4 sanadkee dhashay. waxaan dhashay 2000 waxaa dhashay ka soo qaad 1999. waxaan dhashay 1999 oo kale iska dheh. markaa dhahay soo meeshan waxay gelinaysaa
confirmation numberkaaga adiga aqaano wax ungeli mesela kasoo qaad sansan then confirmation kaaga markay gelisid meeshaan imow waxaad doorataa applicant meeshaan waxaa ka doortaa applicant ka dooro sidoo kale numberkan security code kaanane meeshaan dooro igeli HAXBCE marka dhahdeen waxaad taabanaysaa okay yani continue siiwad wuxuu ina keenayaa meeshaani marka waxaa laga baahan yahay inaad si fiican iskaga fiirisid then waxaad sii taabanaysaa meeshaani start now ay ku qoran tahay then formka waxaa loo baahan yahay markii waxyaabaha oo dhan inaan buuxino insha Allah waxaan u dhan isla eegi doonaa waana wada buuxin doonaa qaybta koowaad oo ah inaad aqbashid qoraalada iyo shuruudaha page yani formkani waxaa laga baahan yahay then waxaad taabanaysaa meeshaan aqbal sidoo kale qaybtani waa meel adiga si gaar ah kugu muhiima waa meeshii aad ka dooran lahayd interviewgaaga meesha aad ku gal lahayd wareysiga safaaradda aad rabtid intaad ka dooranaysa haddii maanta aad yani dabcan wadankaaga aad joogtid oo safaaradda ay ku taalo Mareykan kasoo qaad mesela Kenyaati ayaan ahay dabcan safaarad Mareykan ay ku taala dalka Kenya automatic wuxuu ku soo saarayaa yani wadanka iyo safaaradda ku dhow oo aad ka heli kartid interview ku gali kartid hadda tusaalahan anaga Soomaaliya maanta maadaama aysan ku taalin safaarad Mareykan ah laakiin waxay ku base gareysantahay ay ku taalaa oo Soomaalida howlahooda loogu qabtaa markay imaato fiiso waxyaabahaas la mid ah safaaradda dalka Mareykanka ee ku taalo Kenya marka automatic ahaan uu ku siinayaa marka Soomaali safaaradda ay ku base gareysantahay Nairobi Kenya marka meeshan 3 option ku qoran haddii aad rabtid interviewgaaga in wadanka Kenya yani meesha hadda safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka ay ku base gareysantahay haddii aad rabtid inaad ku gashin interviewga waa dooranaysaa yes schedule my interview there yani day waxay u dhigantaa halkan Kenya Nairobi sidoo kale haddaadan rabin oo aad rabtid safaarad kale inaad ka dhigtid mesela Addis Ababa Djibouti haddii rabtid inaad ka dhigtid sidoo kale xataa no I want to be scheduled in meeshaan dooranaysaa wadanka aad rabtid kasii doorana wadanka aragso mesela kasoo qad Soomaaliya anahay waxaan ku noolahay dalka Turkiga waxaan u baahanahay in interviewga aan ku galo dalka Turkiga so inta ay ka dooranaya Turkiga ay qoranaya then waa helaysaa marka interviewga meesha aad wadanka aad ka dooranay saarjana waa fahanteen qaybtan kale no I am in United States meeshaan waxa waaye waa dadka ku nool yani ku nool yaan sababo caafimaad sababo waxbarasho dad u taga oo waxa jira dalka Mareykanka joogo oo xareystay baqti nasiibkan sidoo kale ku guuleystay marka hadii dadkaas ay kamid tahay adigana waxaad dooran kartaa qaybtan no I am in the United States and I want to adjust status without leaving the United States marka dadkaani oo dalka Mareykanka joogo oo ku guuleystay formkan baqti nasiibkan iyaga loogu talgalay inay xareeyaan marka formkan DS260 marka iyaga form kale jira ee loogu talgalay inay buuxiyaan marka formkaas waxa kulay si gooni insha Allah sana u sheegi doona iyo hadii aad u baahan tahay formkaas inaad wax ku ogaatid fadlan comment iigu soo qor marka insha Allah sayna waan ka soo hadli doonaa soo marka aniga muu baahnina meel kale aan ka dhigto maadaama Soomaaliya hadda ay joogo safaaradda igu dhawna ee tahay Kenya Nairobi aan ka dhignaa insha Allah waxaan leeyahay markii yes schedule my interview there ayaan leeyahay then continue ayaan sii leeyahay marka inta imaano waxaa loo baahan yahay si gaar ah in sidoo kale inta iskaga fiirisid waa shakhsiyad ahaantaadii magacaaga surname-kaaga geli waa magacii awowga magacaaga saddexaad automatic aan asaga ku geliyo given name magacaaga asaabahan automatic aan ku gelinaa magaca so full name in native alphabets meeshaan anaga waxa wax banaga maquseen yani waxa loo talgalay dadka mesela China amal yani qoraaladooda magacyadooda si nooc kale loo qoro hadii jirto si nooc kale in loo qoro magacyadooda yani si nooc kale hadii jiro oo native aan English yani Latin wax ka duwan xarf ka duwan hadii loo qoro inta ku qoro way maadaama anaga xarfahan ay yihiin Latin marka waxa uma baahni marka waxa leedahay does not apply
sorry tick saare. So have you ever used another name? magac kale weligaa ma isticmaashay يعني magac oo diimeed iyo magac noocaas aan weligaa ma isticmaashay camal. have you ever used another names? marka hadaad isticmaasho adiga ku taala, hadaad isticmaalin no iskari hadalka dhan iskaga soo gaabi. marka waxyaabaha qaar kan iska ilaali, yani wax walba yes iskaga cararin, yani inaad si gaar ah u fiirsid way muhiim waay. so no ayaan dhahay, yani have you ever used other names? weligaa magac kale ma isticmaasho? maya maana isticmaalin. maxaa tahay meeshaan, yani dumar maa tahay mise nin rag baa tahay? waa ka dooranay sidoo kale, maadaama nin ahay nina meeshaan ku qorta meel. sidoo kale meeshaan current marital status, meeshaan waa meesha ka dooranay hadaa guursatay, haddii aad weli yani aad guursanin, haddii qof la soo furo aad tahay, yani intaad ka dooranaysaa waana muhiim. masala haddii aad kusoo qorato foomkaagii hore baqtiyaa nasiibka inaad guursatay, fadlan meeshaan ku cadeey inaad guursatay. haddii foomkaas hore aad kusoo qortay inaad single ahayd, sidoo kale single ku qoro. maadaama ani hore aan usoo guursanin, foomkayga hore aad kusoo qortay single inaa ahay, haddana single ayaan ku qornaya inshallah. meesha aad ku dhalatay iyo taariikhda aad dhalatay. taariikhda aad dhashay waatana si toos ah igu geliyay, wax uma baahni inaan hadda mar labaad ku celiyo. city of birth, meesha ku dhashay. meesha ku dhashay ka soo qaad, waxaan ku dhashay Mogadisho ayaan ku dhashay. Muqdisho qasabna maan waxaa si gaar ah iskaga fiirsaa baasaboorkaaga wax ku qoran oo saxda ah. baasaboorkaaga taariikhda yani wadanka ku dhalatay oo saxda ah, wadanka iyo magaalada aad ugu dhalatay. mesela ani Muqdisho ku qortay in Muqdisho iskaga qoran, baasaboorkaaga fiiri meesha aad ku dhalatay, meeshaas ayaa ka arkaysaa. saarajena waa ili fahanteen. sidoo kale meeshaan waxaad gelisaa oo aad si fiican u fiirisaa state of province of birth, meesha aad yani magaalada aad ugu sii dhalatay, yani xaafadda ugu dhalatay Muqdisho. sidoo kale country region of birth, wadanka ku dhalatay, yani Soomaaliya waa dabcan Soomaaliya ka dooranaysa meeshaan. so aan geliyay meeshaan ku dhashay city of birth, magaaladan ku dhashay. magaaladan ku dhashay ka soo qaad baasaboorkayga ugu qoran yahay mesela Kismaayo. xaafadda ugu dhashay suuqa weyn wadanka ku dhashay Soomaaliya. then markaa buuxisid halahani waa qaybtan waa personal, yani shakhsiyadaadi. meeshaan waa magacii awogaaga, magacayga oo dhammaystiran. meeshaan wax native alphabet, yani magacaaga xarfo kale loo qoro ma jirto sida nooc kale oo aad baasaboorkaaga waxyaabaas kugu qoran yahay. no ma lihinba wax noocaas ah. have you ever used another name? weligaa magaca kale ma isticmaashay? maya miyana isticmaalin. maxaa tahay dumar maa tahay mise rag? dabcan raga ahay waa doortay. ma guursaday mise maanan guursadin. sidoo taariikhda dhashay iyo meesha ku dhashay. taariikhda dhashay waatana. sidoo kale city of birth, magaalada ku dhashay oo baasaboorka kugu qorantay, baasaboorka kugu qoran ku qor dabcan. meesha ku dhashay yani province of birth, yani meesha ku dhashay, yani Kismaayo meesha ugu sii inta meesha ugu sii dhashay xaafadda ma garanayo, yani meesha baasaboor waxna kuma qoran kulay. waxaan ku qoraa suuqa weyn camal, meel adiga ka dhumin wax ka dhumin camal iskaga qor. country region of birth, wadankaas yani dabcan Soomaaliya waa. then waxa dhahdaa next personal. qaybtani waa un isla meeshii su'aalihii ayaa socdo. so markii waxay ku weydiiyeen country region of origin, yani origin ahaan wadanka ka soo jeedid. dabcan origin ahaan waxa ka soo jeeda dabcan Soomaaliya qorna. provide the following information on your travel documentigaaga meeshan ku cadeey, yani baasaboor haysta, baasaboor ku qorna, baasaboor doorna. marka baasaboor doortid waxay ku weydiin doonaan document ID waa baasaboor numberkaaga. so baasaboor numberkayga waa B00978. then country
authority that issued document yaa wadanka baasaboorkan soo saaro oo iska leh Soomaali waaye Soomaali dooro taariikhda baasaboorkan la bixiyo mesela taariikh 4 bishii shanaad 2021 la bixiyo taariikhda uu dhacayo taariikh 5 bisha 4 2026 sida saxda kugu qoran geli baasaboorka kugu qoran then su'aashan waxa waaye baasaboorkaaga hooyo yani dalka Soomaalikiisa baasaboorka baxsan ma haysta yani baasaboorka inta ku cadeysameen baasaboor kale ma haysta yani wadan kale dhalasho ma haysta hadii haystid ha qor then marka ha dhahdid waxay ku leeyihiin in buuxsidii kaaga baahan yihiin meeshaan akhbaaradkan baasaboorka loo akhbaaradkiisa inay geysid hadaadan lahayn no iska dheh yani ma bilihid bilaha kulug Soomaan anigana ma lihin then waxa taabanaysa address and phone number aan u gudubno qaybta inoo xigta qaybtani waa waxa inoogu baahan inaan ku qorno akhbaaradkeena sida telephone numberdeena iyo ciwaanadeena yani meesha aan ku noolnahay hadda addresskeena inaan ku qorno ayagu loo baahan yahay present address meeshaan ku noolahay hadda dabcan waa Soomaali waxaan ugu noolahay ka soo qaad Kismaayo suuqa weyn يعني address aadan iloobinin hadhooni aad xasuusan kartid yani Soomaali hadda maanta address toosan yani ciwaan toosan aad qof u soo tilmaamtid oo yani Google Map ku shaqeynayo ma jiro yani address ku aan tilmaamay iyo magacii aan ku soconaa marka sidaas awgeeda qiyaas aan Kismaayo meesha ka degan tahay Kismaayo waxaan ka deganaa suuqa weyn camal ka deganahay so street wadada waayo inay wado waxa rid iska qor 12 wadada so caasimada waa caasimadaas magaalada Kismaayo so meeshan state province iyo postal code zip code ina muhiiman waa iska tay kartaa marka adaa garanay addresski meesha ka digantay magaalada ciwaankaaga kulli waa faanta muhiimada gudanta kaleena so wadankee waa wadankaasi dabcan Soomaali waay Soomaali aan doorno address kan yani ciwaankan hadda ku soo qortay ilaa muddo meeqad ku nool meeq sana amal sanooyin miya bilooyin miya waxa ku noolaay ka bilaabato May bishii shanaad sanadkee waay sanadkii 2019 ka bilaabato 2019 bisha ka bilaabato bishii shanaad ilaa 2019 ku noolay meeshan ciwaankan marka ciwaanka xilliga ku noolay caday meeshaas waxyaabahan aad qoraysid si gaar iskaga fiiri waxyaabo yar yar aad isdhihin waxaan su'aal kama iimaanayn hadhow su'aalkaaga iimaanaysa marka aniga hadda idin la hadlaayeen waxa waaye macnaha miska formkan ma aan form iska apply gareynay oo idinka idin tusaayo waxaan hore u soo maray oo aan khibrad aan u leeyahay waay marka iska taxadir waxyaabahan camal isdhihin waxa ku weydiina way ku weydiinayaan marka waxyaabaha beenti qaladaadka iska ilaali wax yar ay isdhiis wax ma maahan wax weyn ku noqon kartaa so previous addressidii hore meelaha hore u degneedo kale meeshani ka baahan yihiin bala aqran have you lived anywhere other than this address since the age of 16 ka bilaawday da'da 16 ma ku noolaatay yani address kani kor ku soo qorto ka baxsan hadii aad ku noolaatay haade hadii aad ku noolaanin mayde hadii aad hadhahdid waxa waa addresska ku soo noolaatay hore ugu nooleed iyo ku weydiin mesela Muqdisho ku kortay oo ku weynaatay aad ku nooleed ilaa ii da'da 16 sano markay jirtay 16 sano markay gaartay da'daada mise adiga waxaad u wareegteen yani familkiin u gurteen Kenya camal Ethiopia camal Djibouti camal u gurteen so qofkaas camal ay u baahan yihiin hadii address wala wadan oo kala duwan ku kala noolaatay ku qor meeshan ku cadeey hadii hore ugu nooleed Soomaaliya mise Kenya ugu nooleed ku cadeey meeshan hadii aad wiligaan dalka meel ugu bixin aad dalka joogtay
meeshaan noo iskale yani weligii kuma noolaanin meel kale addresskana ku noolaa yani weligii haddana aan ku noolay so meeshaan noo dheh then meeshaan imaatay telephone numberadaada ku qoro 252617795 tusaale ahaan kulli idin siinaya so primary phone number telephone numberkaaga saxda ah ku qoro haddii telephone number kale ay haysatid waa gelin kartaa haddaadan lahayn does not apply iskale haddii meel aad ka shaqaysa telephone number uu jiro aad leedahay haddii haysatid numberka sidoo kale ku qor haddaadan haysanin does not apply iskale wax problem kaaga imaanayso so meeshaan laba aw imaan have you used any other telephone number during the last 5 years telephone number kale ma isticmaashay sanadihii 5 sano ugu dambeeyay haddii aad isticmaashay haade oo telephone numberadaas geli meeshaan telephone numberkaas geli ku dar haddii mid kale aad u baahanteen marka saas ay u soconay laakiin haddaadan lahayn telephone number oo telephone kan aad weliga isticmaali jirtay no iska yani 5 sano ugu dambeeyay telephone number kale ma isticmaalin then waxaa soo har email address ka geli email address ka waa ali.abdi154@gmail.com gmail kayga waa kay email kayga waxaa kaloo ina weydiin have you used any other email address during the last 5 years email kale ma isticmaashay muddooyinkii 5 sano ugu dambeysay hadda isticmaasho haade marka hadhayd waxa way section kale ku siinaa oo ku dirtid emailkaas kale ku qortay haddii aadan lahayn weligaan aas emailkan isticmaali jirtay waxa iska dhahdaan no so waxa ku soo social media meeshaan waxa way haddii aad isticmaashay Facebook TikTok Instagram Twitter waxyaabahaas oo dhan meeshaan ku buuxi maxaa isticmaashaa meeshaan hadda waxa isticmaalaa ka soo qad Instagram then wixii ka baahan Instagram ka magaciisa Ali Abdi Allah Instagram kay haddii wax kale aad leedahay ku dar mid kale wax kale ma jira aad isticmaashid waa ku daray yani ilaa i Facebook-gaaga sheegay mesela Facebook-gayga Ali Abdi so saasay u soconaysaa sheekada saarjeena way ilfaanteen other social media wax kale aad isticmaasho ma jira other social media do you wish to provide information about your presence on any other website or applicants to have used within the last 5 years to create or share photo video status waxaan haddii social media waxyaabo kala hor oo isticmaali jirta sawiraantaada waxyaabahaas oo social gareyn jirtay yani ma jiraan yani waxyaabo noocaas mesela YouTube amal waxyaabahaas ma leedahay haddii aad leedahay haddii aad lahayn ma iska dheh waxa problem ma jiro then waxaan rajaynaynaa qaybtan ay isla fahanay waxaan u gudbaynaa qaybta xigta qaybtan waa meeshii aad hadhow marka dalka Mareykanka aad tagtid yani guriga aad ku degileed addresskiisa ciwaankiisa iyo sidoo kale addresskan waa meesha kugu soo dir lahaayeen sharcigaaga hadhow marka aad tagtid meesha dalka Mareykanka insha Allah waxa waa fahantaan rajaynay marka kulley haddii aadan formkani akhbaaradkiisa oo dhameysan wali aan fahmin video ka sameeyay yani formkan waxyaabaha aan laga baahan inaad si diyaarsatid intaadan formkan aadan buuxinin waxa kamid ahayd inaan sheegay inaad heshid addresskan dalka qof inaad heshid waa dalka Mareykanka ku nool ciwaankiisa soo qaadatid walaalkaaga walaashaada qaraabada wixii rabta ahaato marka address inaad heshid muhiim waa addresskan inaad heshid isku day fadlan waxa way muhiim ku yahay antiis kuma soconayso so is your mailing address the same as your present address yes then waxay gelinaysaa qofka magaciisa qofkaas yani guriga iskale yani addresskaas qofka iskale name of the person currently living at address yani addresskaas qofka hadda ku nool oo iskale qofka ku digaysid addresskiisa magaciisa geli magaciisa waxa Mohamed Yusuf Ali then addresska qofka uu ku soo diray saxda geli marka meeshan US straight address line 1 US straight address line 2 kala qoran waa laba address yani meeshan waxa sameynaa qofka addresska uu ku soo diray sidiisa copy u soo dheh meeshan ku qor marka inaad addresska kala goorin oo half inaad ku qortid half inta ku qoran meeshan waa optional waa yani waa ka tagi kartaa hadaa rabto buuxin kartaa
oo qori kartaa hadii aragtid waa ka tagi kartaa marka address kala half inta qori lagu wareer lahaa addresska hal meel ku qor meeshan ku qor marka aniga addresska li soo siiya waxa way 124 New Jersey Mac Street addresska li soo siiya sidaan uu egyahay macna حوان كل تصالة نسينا ماشي أندريسي أخبار صح يكون مقروي بركينا فهمتين اسكو دينا فهمتين أو بهنا وحن سيدا وشقينا سيستم كان and city New Jersey واي state كي كتر سنته نيو كتر سنته نيويورك يعني نيو جيرسي انت والستيت كستيت كي ونيويورك واي سو زيب كود كا قف أساوي حنا أخبارات كنكو صدر قف كو فهم كرا كله and zip code كيسا وحواي كسوقات 304 سوق التليفون نمبر قف كاسي then مركب بوحسد أخبارات كيسا سواشان فيري is this address where you want your permanent residence green card mailed address كان مو waxa u rabtaa yani addresska in lagu soo diro aa u baahan tahay green card lottery green card yani green card ka sharciga meesha marka aad tagtid Mareykanka ma kana u baahan tahay in lagu soo diro emailka yani sharciga lagu soo diro hadii u baahan tahay isla addresskan haade hadii aadan rabin waxa dhahaysaa no then wuxuu kusoo siinaya option qayb ku soo siin doona uu ku dhihi doono buuxi addresska oo lagu soo diray meeshan ku geliya lagu leeyahay marka idan waa sidaas hadii aad u socotid yani guri aad ku degi doontid laakiin gurigaas aad ka wareegsan doontid isla muddo oo addresskaaga lagu soo diri doonin kaas oo ay u baahan tahay address kale marka address kale waa gelin kartaa meeshan sarjana waa fahantaa laakiin maadaama aan u baahnayn addresskan le aan degnaan doono waxaan lahaa yes meeshan aan lagu soo diri doono addresskii then waxaan u gudbeynaa qaybta family bal haddaan isla fiirino qaybtani waa qaybtii lagaaga baahnay inaad ku qortid akhbaaraadka waalidiintaada yani hooyadaadii aabahaaga magacooda oo dhameystiran taariikhday dhasheen magaaladay ku dhasheen wadankay ku dhasheen in ay nool yihiin marka waxyaabo lamid ah waxaasay ku weydiinayaan haddii aan isla fiirino aan ku bilowno magaca fadlan meeshaan iska taxadir magacyada hadda meeshaan given names ku qoran waxaa gelisaa saddexda magac ee aabaha uu leeyahay meeshaan surname ka ay ku qoran tahay waxay gelisaa magaca afraad ee aabaha hadii aabaha la dhaho mesela Ali Muhammad Abdullahi meeshaan geli magac kale afraad oo asaga aboobihiisa dhalay qofka dhalay asana geli sababtoo hadhow marka aad soo qaadan doontid warqadan police certificate ka warqadan oo CID ka soo qaadan doontid أو دير دونت KCC warqadaas kuwaas wuxuu ku soo qor doonay ilaa iyo 5 magac gaarisa magaca aabaha ilaa magaca afraad oo aabaha ay ka baahan yihiin marka iska taxadir hadhow intaana hadan kuma qorin oo yani hadda kuma qorin oo hadhowna warqadaas magaca sidoo ku soo baxo yani magacay oo extra imaanay yani oo dheeraad ah marka sida saas u dhicin hadda magaca oo saxan oo aabahaaga ku qor mesela magaca aabaha waxa lahaa Ali Muhammad Abdullahi then magaciisa kale oo yani qofkan Abdullahi qofka sii dhalay aboogiisa qofka sii dhalay Hassan ku qor sababtoo hadaad ku qorin oo hadda do not know hadhow warqadan CID da ku soo qaadan doonto way ku qornaan doontaa kuwaas markaa yeelayaan yani in magaca aabahaaga oo yani oo Muhammad Abdullahi bisina dhaafan ilaa magac kale oo afraad ay u baahan yihiin marka fadlan ku dar magacaas taariikhda dhashada taqaanid waxa way problem ma lahan qor like hadaad aqaanin ma aqaanide then magaaladu ku dhashay aabahaaga sidoo kale waxaan waajib ma ahan inaad ogaatid macnaha inay yani ku qortid laakiin hadaad taqaanid oo Ilaahay ku leeyahay yani iska qor like hadaadan garanaynin waxa way iska daa so since aniga hadda aan garanayo oo ku qornaa magaca aabihiga wadanka magaaladu ku dhashay oo ku dhashay Kismaayo
magaaladu xaafadda ugu sii dhashay suuqa weyn wadanka Soomaaliya dabcan. Okay, aabaha ma nool yahay? hadduu nool yahay haadhe meeshuu ku nool yahay adreysadii wixii laga rabo. hadduu nooleen waxaa may iska leh. taariikh sanadkuu dhashay maxay waay? sanadkuu dhashay geli sanadku yani uu dhintay. wuxuu dhintay 2005. so magaca hooyadeeda soo hartay iyadana isla sidii oo kale. magaca hooyada hadii la dhaho ka soo qaad Fatuma Ali Yusuf Abdi. magaceedu saddexan saddexda magaca waa hooyadaadu dhameystiran plus magaca awowgaa ku dar. waqtiga dhashada haddaad taqaanid ku qor, haddaad aqaanin ma aqaani iska dheh. magaalada ku dhashatay Mogadishu. waxyaana kale iskaga tag xaafada uu sii dhalatay waxyaabahaas u kala baahan yahay. country waxyaabaha aniga aan ka booda aan ka tagay sida hadda kale mid aan doono no aniga aan garanaynin. adiga hadaad garanaysid ku qoro, yani aniga hadaa ma garanayo ku qorta, adigana ma garanayo iskaga qornay. so hooyada ma nooshahay? hadee nooshahay ha, hadii ay nooleen maya. waxa way waa sidaas, sanadkay dhimatay ku qor. hadee nooshahayna waxa way garanaysaa sidaas u qoraysaa. okay, qaybtan waa isla dhameeyay, bal qaybta xigta aan u gudubno. okay, haddii aan u gudubno qaybtani waa qaybta inoo xigta. wili waxa socdo waa akhbaaraadka family-geena inaan gelino. so meeshaan wixii inoogu baahan yihiin waxa waaye waa haddii jireen xaasas hore aad u lahayd. meeshaan waxay ku qoran fadlan meeshaan ku cadeey xaasaskaagii oo dhan, yani kuwa hadda qabtid, kuwa hore u qabtay kala tagteen, including ku dara loo dhahe kuwa dhintay hataa. kuwa dhintay ku dar. haddii jireen xaasas hore u lahayd oo dhintay fadlan ku dar. so haddii aad leedahay meeshaan ku cadeey. so waxay ku dhaheen ma jirta yani previous spouses wax hore xaasas hore aad u lahayd ma jirta. haddii jireen haadhe then akhbaaraadkooda ku qor meeshaan. waxa waaye magacoodii oo dhameystiran, taariikhdii ay dhasheen, taariikhdaad isguursateen, xilliga guurkaas uu dhamaaday aad kala tagteen, how was your marriage terminated, sidee yani ku kala tagteen gurkiina ku cadee meeshaan. ma furtay, ma dhimatay, yani meeshaas sidoo kale ku cadee. yani wadanka yani guurkaasi oo uu ka dhacay oo aad ku kala tagteen wadanku yani markaas qofkaas aad kala tageyseen wadanka markaa aad joogteen wadankaas ku cadee. marka saarjeena waa fahanteen. so haddii ay jiraan yes dheh, sidaan sheegay akhbaaraadkan qor. haddii jirin waxaa iskaga tag. number of previous spouses meeqa xaasaa lahayd iyagana sidoo kale tirada inta aad guursatay ku qor meeshaan. haddii 4 5 6 10 waxaa soo guursatay meeshaan ku qor. marka su-aashani rag iyo dumar bay qusaysaa, yani nin rag keli ma ku socdo, yani nin iyo naag labadiina bay ku socotaa. haddaa xaasas hore u lahayd qoftaana dumarka ku qor meeshaan. haddii qofkan ragga adin xaasas hore u lahayd sidoo kale adigana ku qoran. maadaama aniga aan lahayn waxa waaye maya, yani single ah yani wiliga ma guursan. marka saarjeena qaybtan waa isla fahanay. okay, qaybta xigta oo caruurta. okay, meeshaan caruurta iyadana waa isla meeshii. su-aasha ku weydiiyana waxay tahay do you have any children? haddii caruur aa leedahay fadlan yes dheh, haa dheh, akhbaaraadkooda geli meeshaan. cunuga koowaad magaciisii, taariikhda uu dhashay, meesha uu ku dhashay, wadanka. does this children live with you? cunugan adiga miyuu kula noolyahay? hadduu kula noolyahay haa, hadduu kula noolyahay maya, uu kula nooleen maya. is this children immigrated to US with you? immigrating cunugan mi adigu rabaa inuu kula aado, yani is immigrating adigu rabaa inuu kula haajiro oo US yani kula aado wadanka dalka Mareykanka. haddii yes tahay haa geli, haddii maya ay tahayna maya geli. marka saarjeena waa fahanteen.
so bal hada isla buuxino do you have any children waxa rumeeyay aniga malihi ma yaaleeyahay sheekadan halaas ku dhamaatay qaybtan sidaas ugu dhamaatay laakiin hadii jireen fadlan qabaaraadka caruurtaada geli yes deh then cunugay geli koowaad akhbaaradkiisa oo dhameystiran hadii caruurtaada sii jiraan meeshan sii taawo add another ay ku qoran tahay ku dhufo marka ku dhufatid qayb kale ku sii geeni doona cunugii labaad child 2 cunugii saddexaad ilaa iyo inta caruurtaada akhbaaradkooda ay ka gelinaysid marka sidaas ay u soconaysaa saarjeena waa ila fahanteen qaybtani maadaama aniga wax caruur aan lahayn wiligan aan guursan ma yaan leeyahay wax caruur mali ilaahan ilaahay soma I hope meeshan waa ila fahanteen okay qaybta ku xiga hadii aan u gudubno okay qaybtani waa qaybtii previous US travel information يعني waxay qusaysaa يعني dadka hore u safra Mareykan u tagay iidadan wili u tagay يعني wax quseeyo يعني safarkaaga wiliga Mareykan ma tagtay waxyaabaha soo su'aalaha waxay ku weydiin doonaan meeshaan isla fiirno provide the following previous US travel information provide complete and accurate information to all questions that require an explanation fadlan meeshaan ku cadeey aan hadii jirin yani safra u safartay dalka Mareykanka ay kaaga baahin marka si taxadir leh u fiir su'aalan muu maleenahay yani qof hore soo Mareykan u tagay yani inuu nagu jiro hadii ku jiro fadlan su'aalan si fiican ugu jawaab maadaama aniga wiligeena Mareykan tagay hay su'aalan waa ka jawaaba hadaa taga Mareykan wiligay su'aalan hayandii hadaa ana tagina ma yaali soo su'aashka wadadan fiirino have you ever been in US wiliga yani dalka Mareykan wili ma tagtay hadii aad tagta hay geli yes hadii ana tagin may aniga may wiligay ma aan tagin may gashanaya have you ever been issued a US visa wiliga visa Mareykanka maluusi oo passportka lagu dhuftay hadii lagu dhuftay dabcan haade hadii lagu dhufanina maya okay have you ever been refused a US visa maya waa sidaas u fuuday wax weyn maan hadii ay jireen have you ever been in US wiliga Mareykanka dalka Mareykanka ma tagtay hadii aad tagtay ay jirto haade okay then akhbaarada laga baahan ina meeshan ku bixiso meeshan geli aniga waxa wiliga maalinta Mareykan waxa leeyahay marka maya qaybtan sidaan rajeena waa ila fahanne bal qaybta ku xigta aanu gudubno qaybtani waa qaybtii inuu baahnaa in aan gelino hadii jireen shaqooyin hadda aan qaban shaqooyin horaan u soo qabanay waxbarashadeeni waxa waa akhbaarad quseeya anaga nafsadaanteena yani waxbarashadeeni shaqooyinkeena waxyaabahan soo qabanay okay meeshaan waxa leen note ugu provide the following information concerning your current employment or education fadlan akhbaaradkan soo socda meeshaan ku caday adigoo u tixgelinayo current employment yani hadda shaqooyinka aad qabanaysid iyo waxbarashada hadda ku jirtid su'aasha koowaad waxa waaye primary occupation waxa hadda aad qabatid sheeg waxa right now hadda aad haysid aad qabatid aad ka shaqaysid meeshaan ku caday hadda dhakhtar tahay dhakhtarnimada ku caday hadda arday tahay ardaynimada ku caday waxa qabatid shaqada rabtid ku caday meeshaan laakiin akhbaaradii ka baahin maadaama hadda aniga aan ahay arday waxaan gashanayaa student ardayna ahay then marka ardaynimada meeshaan arday ahayd hadda waxa qabatid waxay kaaga baahin provide the following information akhbaarad waxyaabaha soo socda meeshaan ku caday present employment or school name hadda iskuulka dhigid arday aan ahay Soomaan iskuulka jaamacadda waxa dhigitid meeshaan ku caday so hadda waxaan dhigtaa tusaalahan Simad University jaamacad Simad dhigtaa intee ku taala jaamacad Simad meel ku taalo ku qor ay ku taala Taleex kilometer 4 so street option waa wax iska daa address sida uu yani tusaale ahaan meeshaan iska geli magaalada ay ku taalo Mogadishu okay state-ka I don't know waxaan ma garanay kuwani iska daa wax problem ma kaaga imaanay
magaaladii wadanka ku taala dabcan Soomaaliya ku taala siimad so sidana u buuxinaysaa oo alaga baahan yahay then do you have other occupation wax shaqo kale ma qabatay ay jirto hadii jirto ha geli then akhbaaradka ku weydiiyaan buuxi hadii san jirin maya waa sidaas u fuuday sheekadan so su'aasha labaad noo xigto in which occupation do you intend to work in US yani marka dalka Mareykanka aad tagtid oo fiisaan ay heshid ilaahay duu ku sahlo insha Allah maxaa rajaynaysaa inaad ka shaqeysid yani waxa rajaynaysaa ma jirtaa inaad ka shaqeysid oo aad ku hamweyn tahay yani ma jiraan hadii jiraan ha ku qor waxa rajaynaya inaan noqdo computer scientist ina computer science yani system kaas shaqeeyna software engineering fiicana noqdo shirkada Apple Google oo shaqeey saasaan rajaynaya so waxa rajaynaysid oo aad ku hamweynta adiga garanay marka sida rajaynayna qaybtan waa isla aragnay then waxaan u gudbaynaa qaybta inuu xig okay qaybtan inuu xigtayadana waxa waaye waxay qusaysaa oo inuu u baahan inaan gelino previous yani waxyaabaha shaqooyinka horaan u soo qabanay hadii jirtay so su'aasha koowaad ee weydiiyeen waxa waaye were you previously employed shaqaale hore mu ahayd hadii aad u ahayd ha dabcan ha geli hadii aad u ahayn ma wiliga aad shaqeynay maya laakiin hadii jirtay aad shaqeysay haade teen akhbaaradkan geli ka baahan yihiin so simple sidaas u fuuda wax weyn maahan so aniga wiliga shaqaale mar mu noqonin so then su'aasha ku xigta waxa waaye have you attended any educational institution at secondary level or above ma jirta yani have you attended wax ma jiray school aad dhigatay oo secondary level or above yani wax dugsi sare ka koreeya ay jirin ma jiray hadii jirtay dabcan ha yani hadda ka soo qaad jaamacada dhigataa laakiin hore waxa u soo dhameysay dugsi sare so qaybtan waxay gelinaysaa yes I leedahay have you attended any education institution at secondary level yani or above yani wax dugsi sare ka sore dugsi sare ilaa iyo wax ka sare heer ma gaarto waxbarasho yani wiliga ma soo dhigatay meeshan waxay gelinaysaa haya leedahay dugsiga sare aad soo dhameysay aad ku qoraysaa meeshan aad gelinaysaa then hadii hadda hore jaamacada u dhameysay jaamacada gelinaysaa hadii waxa hore u soo dhigatay aad meeshan ku cadeynaysaa aniga hore waxa soo dhigtay school aan soo dhigtay ilaa iyo heer shahaadaan ka qad schoolkayga soo marka meeshaan ku cadeena highest level of education completed how high school diploma meeshaan iska fiiri meeshaan waxa ku qoran high school no degree dugsi sare dhameeyay laakiin shahaado ma haysto shahaado ma qaadanin sidoo kale meeshaan waxa ku qoran high school diploma yani dugsi sare dhameeyay oo waxaan haystaa shahaado dugsi sare vocational school ayaan dhameeyay university no degree jaamacada dhameeyay laakiin wax shahaado ma qaadanin oo ma haysto iyo jaamacadan dhameeyay oo shahaadana waa haystaa so adiga garanay hadda aniga waxa meeshan gelinaya dugsi sare hore u soo dhameeyay shahaadana waa haystaa high school diploma ayaan doornaa okay waa fahantiin sar janay number of education institute attending schoolada aad soo dhigatay meeqay gaareen hadii jireen school weyn yani schoolkaagi private soo dhigata waxyaabo aslan meeshan ku caday midna la soco hadii meeshan geli laba school soo dhigto waxay iga baahan yihiin labadaas school akhbaaradkooda inaan meeshan ku buuxiyo iga baahan yihiin hadii hal school soo dhigtay halka school ee akhbaaradkooda iga baahan yihiin aniga maadaama hal school aan tagay hal school ayaan doornay maadaama hal school aan dhigtay aniga so then meeshan waxaan ku cadeynay schoolkii magaciisa ayaan meeshan ku cadeynaya schoolkan soo dhigto wuxuu ahay al Imra school intuu ku yaalay Taleex kilometer 4 ayuu ku yaalay then optional loo iskaga tag qaybtan oo ka tag kartaa daarabtan oo buuxin kartaa magaalada ku yaalay Mogadishu waxaan time umahay state province uu meeluhu ku siyaal postal code country
dabcan Soomaaliya waxaad meeshaas ka dhiganaysa muxuu ahay waxyaabahan ka dhiganayna meeshaas waxay ahayn iskuuladeena yani Soomaali ahaan markii la dhaho waxa way yani wax maado toos takhasus iskuul muu dhigano ma ka dhigano yani waxaan ka dhigano yani iskuuladii waxay bixiyaan wax general la bixiyaa marka hada iskuul diimeed soo dhigtay meeshan ku qor wax diimo quseeyo soo dhigtay religion something about religion hadii aad soo dhigtay waxyaabo la quseeyo kale yani iskuulada aan sida wax diimo iyo kuba general science ah u badan yihiin marka meeshan waxa ku qoraysaa iskuulka soo dhigay yani inuu ahay science yani general ahaan yani general school inuu ahay general school inuu ahay yani general science aan soo dhigtay meeshan ku cadeynaya aniga general science so waxaan leeyahay general science yani course of study waxaan soo dhigtay maxaa iskuulka waxaan ka soo dhigtay course-aan soo dhigtay waxa general science yani science guud aan soo dhigtay so iskuuladeena ma waxay bixin degree diploma certificate dabcan waxay bixiyaan iskuulada iska siya certificate okay iskuulkaas xilliga tagtay oo code attendance date of attendance from yani xilliga laga soo bilaabo xilliga waxa ay ahaayeen xilliga wuxuu ahay 2000 taariikh 6 bishii koowaad not bishii koowaad August bishii 8 and 2010 ayuu ahay iskuulkaas xilliga dhamay xilligu ahay taariikh 7 bishii 6 2017 ayaan dhameeyay iskuulkaas marka sidaas u buuxinaysa haddii jir iskuul kale aad soo dhigatay fadlan add another dheh then akhbaaraadka buux lagaga baahan yahay sidaa rajeenayo waa ila fahanteen soo qaybta ku xigta aan u gudubno okay weli waxaa inoo socdo qaybtii waxbarashadii iyo shaqooyinka aan soo qabanay inaan buuxino weli qaybtii inoo socoto soo qaybtani waxa way su'aalo waa qaybtani waa su'aalo aad u muhiim ah inaad iska fiirisid loo baahan yahay si taxadir leh meeshan waxay dhan ku caday yani waxyaabaha soo socda meeshan si saxan yani waxyaabaha shaqooyinka soo qabatay waxyaabaha ka soo qaadatay waxbarashadaadii waxyaabaha soo dhan fadlan si taxadir leh meeshan ugu fiir su'aalaan yani iska fiir meel haal laga rabay may hadin meel may laga rabin haadin kulli adiga aqaan nafsadaantaada waxyaabaha su'aalaanada ku qusayaan soo aniga waxaan ugu jawaabayaa aniga nafsadaanteeda islaan u arko iyo nafsadeeda sida ku tay su'aashan so su'aash koowaad waxa waaye have you traveled to any country or regions with the last 5 years wili mu safartay 5 sano ugu dambeeyay mu safartay yani wadamo kale gobol kale meel kale mu safartay hadii ay jirtay dabcan ha hadii ay jirin maya hadii maya aad dhahdid oo laakiin ay jirtay inaad u safartay mesela dalalka noo dhow Kenya Ethiopia Djibouti maya dhahday laakiin wadamadaasna u safartay kulli baasaboorka way arki doonaan fiisooyinkaas ay arki doonaan marka waxa beent iska daa hadii jirin aad u safarto wax problem ma lahan ha dheh then marka ha dhahdid waxa waaye waxay ku weydiin doonaan akhbaaraad saar jeenay marka meeshaas aad tagtid يعني marka safaarad tagtid ku weydiin doonaan sabab yani wadankaas waxa ka tagtay sababta u tagtay waxa qaban leed laakiin weligay maanan u safrin wadan kale waxa dalkayga jooshan san ugu dambeysay meel maanan safrin xalay maanan u safrin then su'aasha labaad have you ever served in the military weligaya military-ga marka u shaqeysay yani shaqaale military man dawladda mu shaqeysay hadii jirtay hadii ay jirin maya ani weligay maanan military-ka ma ka qayb galin weligay maanan u shaqeynay so have you belonged to contributed to or worked for any professional social or charitable organization wiliga yani ma lahaatay mise mu shaqeysay yani hay'ado oo hay'ado yani wax gargaar bixiyo bulshada shaqooyin bulsho ma qabatay waxyaabo professional shaqooyin qabatay ma jirtaa
mis adiga aad lahayd ma jirtay haddii jirtay haa haddii ay jirtay maya aniga ma jirin wax noocaas inaan qabto shaqooyin noocaas so su'aasha labaad ee noo xigta waxaa waaye do you have any specialized skills or training so ma jira yani wax skill xirfad aad taqaanid oo aad ku fiican tahay sida nuclearka biologyga chemistryga waxyaabahaas ma jira wax experience khibrad fiican oo leed haddii ay jirtay haa haddii ay jirin maya ma jirto ma believe waxaas so meeshaan waxaa ku qoran have you ever served been member weligaa ma ka mid noqotay mana ku lug lahaatay yani qolooyinkan yani waxyaabaha rebel group yadan wallahi ma garanay su'aasha ma fahmin laakiin waxa waa aniga ma jirto weli wax noocan weliga maanan noqonin kamaanan qayb galin maya can you speak and or read languages other than your native language luqadkan ma jirtaa marka laga reebo luqadaada hooyo oo aad ku hadli kartid oo aad qori kartid ma jirtaa haddii ay jirta haa meeshan ku cadeey qor meeshan luqadaas Arabic English Turkish Swahili luqada taqaanid oo aqrin kartid oo aad qori kartid ku cadeey aniga waxa leeyahay marka haddii ay jirto waxaan aqaan English Turkish and Arabic intaas aqaanay leeyahay marka sidaas waa ila fahanteen aan u maleeyo su'aalaha si gaar ah iskaga fiiri fadlan so waxaan rajaynayaa inaan dhammaan qaybtii waxbarashadii iyo shaqooyinka soo qabanay qusiisay waxaan u gudbaynaa qaybta inoo xigto oo security and background okay qaybtan haddii aan galno iyadana waxay quseysaa security and background yani meeshan waa qayb iyadan aad u muhiim ah waxay sababi kartaa in fiisahaaga lagu diido meel yar aha dhahdid bis email yar ama ya dhahdid marka si gaar la iskaga fiiri su'aalahani insha Allah marka su'aasha koowaad waxay tahay ay ku weydiinayaan do you have a communicable diseases of public health significance such as tuberculosis yani ma jira wax cudurada faafa sida TB camal ma qabtaa ma jira haddii ay jirto waa kay haade haddii ay jirin caafimaad qabtid maya laakiin maya iska dheh meeshan mayda fadlan xawaaye cuduradan faafa halis waaye waxyaabaha fiisaha dadka loogu diiday ka mid yahay caafimaadka wax soo mar lagu dhahay sidaas ka mid ah so su'aasha labaad ku xigto and do you have documentation to establish that you have received vaccination in accordance with US law and ma jira wax yani vaccine yani tilaal asoo qaadatay sida uu qoray yani sharciga dalka Mareykanka ma jira meeshani haade fadlan haade sababtoo ah inta aadan interviewga aagalin ee fiisaha ay ku siinin waxa mari doontaa caafimaadkaas ay ku jirtaa marka baashan tilaalkan markaas ayaa soo qaadan doontaa marka caafimaadka soo maraysid marka aad meesha aad tagi doontid oo wareysi kuula yeelan doonaan marka waxa way jawaabtaada haa way horan haaya uu soo dhahdo weyn ku weydiin doonaan ma haystaa haa way marka warqada caafimaadka iyo tilaalada aad soo martay ayaa tusaysa marka mayaha isku dhihin mayaha dad isku dhahdid marka meesha tagtid waxa way dadkan inay problemka ay imaata laga yaabo marka jawaabteeda haa dheh meeshan sida arjana waa elephant sidoo kale meeshan okay su'aasha kale ku xigto do you have mental or physical disorder ma jira yani wax problem maskaxiyan ma qabtaa maya ma qabo are you or have you ever been drug abuse or addict wili yani alcoholist ma noqotay ma jirtay maya marka meeshan hal wax ogaada qaybtan oo dhan security and background health and medical and health criminal security 1 security 2 immigration law violence intan kuwaan oo dhan jawaabahan oo dhan fadlan maya no iskaga qor marka laga reebo midan oo vaccine-ka yani talaalka bis haadho meeshani hadda ha kuwan isku dhayd waxa way su'aalo waxa ku jira yani
oo ma jira yani waxyaabo dambiye ma soo gashay, dad ma soo dishay, terrorist yani kuwa argagixis ma la soo shaqay. su'aalo noocaas oo su'aalaha dhan marka si gaar la iska fiir ha iska dhihin fadlan. waxa way meeshan su'aashan oo ah do you have documentation to establish that you have received vaccination in accordance with US law. midani oo ma jirta yani wax tilaal ah soo qaadatay, midan bis haadho sida rajayna waa ila fahanteen hadalkii meesha u wada. qaybtan oo dhan qaybtan waxaan guduud karana u jeedid in qaybta ku xigto oo criminalka u gudubno. qaybtani waa isla meeshii kuwii aan idin sheegay maya iska idin dhahay way ay kamid tahay. marka su'aalaha waxa kamid oo kale have you ever been arrested, wili ma lagu xire, wiliga ma ku dhacdo wax dambiye ma gashay, يعني محكمة ملوس استاجي مايا تفضل مايا اسكري سؤال ادو خالص يا have you ever violated engaged waxyaabo xumaatooyin sharci darro iyo ma ku dhaqaaqo ma sameysay wiliga ma lagu ganaaxay maya. su'aalana fadlan maya 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 never wiliga maysan dhicin. su'aalahan oo dhan fadlan ma iska adigan iska aqri maya iska dhihin sidoo kale iska fiiri hadii jirto waxyaabo xumaata soo dhaqaaqday oo soo sameysay oo CID da farahada waxaas ay heesay jirto fadlan meeshan ku caday. marka maya 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 so take maya 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 wili waxalena maya 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 no 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 waxaan ka soo tagno ma rajaynayo. then qaybta labaad aan u gudubno maya 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 qaybtii way socotaa su'aalihii sidaan ku dhahay fadlan qaybtan oo dhan security ilaa iyo meeshani qaybtan ilaa iyo fadlan maya iska dheh su'aalahan iska aqri. so maya maya ay su'aalo halis ah hadda tan oo kale ka soo qaata have you ever been removed or deported from any country, wiliga wadan kale ma laga soo tarxiil yani ma laga soo buri maya haya isku leedahay waxa way baxar weyn way marka sidaas ula soco. then qaybta ku xigta then wili su'aaliya socdo maya 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 okay maya alright. then wili way socotaa maya no 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 fadlan su'aalahan adigan iska aqri su'aalaha fadlan iska aqri. then meeshan waa dhameynaa the security background kan waxaan u gudbaynaa social security number qaybtaas insha Allah u gudbaynaa. okay qaybtani iyadana waa meel aad u muhiim ah waaye ina iska fiirsada loo baahan yahay maya iyo ha waxa way iskaga ordid maahan si fadlan su'aalahan si gaar ah iskaga akhri. okay social security number waa numberka yani sharci lagu siin doono ID cardka numberka ku qornaan doono oo Mareykanka aad ku joogi doontid waa numberkan. marka social security numberka waa numberka aad ku muhiim fadlan si gaar ah iskaga fiir meeshan meel ha laga rabi maya iskaga qorin fadlan. okay su'aasha koowaad aan ku bilaawno waxay ku dhaheen have you ever applied for a social security number, wiliga hormo apply garay social security number ma wiliga hormaano apply garay waxa markii ugu horeysa aan apply garayna. marka have you ever applied for social security number, wiliga hormo apply garay samay maanan apply garaynin maya dheh meeshani. so do you want social security administration to issue a social security number card, ma u baahan tahay in yani social security number lagu siiyo ha waa u baahanay in la siiyo ha dheh meeshan maya hadaan kuma siinayaan waxaynayd waxa reject lagu siina visa fadlan ha dheh meeshan. okay do you authorize
disclaim information for the marta yani departmentiga social security in homeland security kaaga social security kaaga numberka admission yani ay sameeyeen ay diiwaangelin ku sameeyeen ma u baahan tahay adiga meeshan haadhe iyadana okay meeshan waxa ku qoran arag si gaaran iska fiiri su'aashan ay qusaysaa if you answer is no to this question you will not receive a social security card number inta kugu cadin hadee tani yani su'aashani hadda aniga haadhay hadda yani maya ay dhahdid ay ku dhaheen if you answer no hadii jawaabtaada ay noqotay dhahdid no to this question su'aashani macnaheedu waxa way wax social security number kuma siineyno way meeshani kugu cadin marka fadlan haadhe meeshani sidoo kale meeshani oo social security number in lagu siimo baahantay haadhe waxa meeshani iyadana adeeg ku qosaysa have you ever applied for social security wili social security halmo apply gareysay hadaa u apply gareysay ha adiga garanay kulli hadaan u apply gareyn oo markii ugu horeysay ay tahay green card ku guuleystay oo aad Mareykan u socotid fadlan ma yadhe sababtoo hormaada u apply gareyn meeshan ha so meeshani hadda waa isla dhameene waxa formka hadda inta ugu muhiimsaneed wixii waa soo wada dhameene then review aan bal afiirin reviewgiisa formkan yani asoo wada kooban aan wada eegno okay gabagabadii ayaan imaanay waa qaybta reviewga yani meeshan waa wixii aan soo wada qornay oo dhan formka marka soo bixin meeshan uu na keenan doona then meeshan ayaa wax xulbo ku ogaani karnaa oo wixii hadaan qaladna wax diiwaan u sixi karnaa hadii wax ay naga saxiyeen hadii wax naga qaldiin meeshan ku ogaani karnaa kasoo qaada deemaad waxay ka qaldiin aartid inaad saxdid then waxa leedahay meeshan edit ay ku qoranta ku dhufanaysaa dib ayaad u saxaysaa waxa sidaas u fududaa waxa way oo adag ma bahanba marka sida arjeenay waa isla faanay so formkan sidan ayuu noogu dhamaaday oo halahan way yani aniga hadda mar rabo in aan diro oo submit in aan dhaho mar rabo marka waxa way meeshan ku keenay doona insha Allah kulay diritaankiisa wax adag ma ahan waxa way halaan hadii abuuxsi Allah dhimana diritaankiisa adiga dhameystirnay so insha Allah waxaan ku rajeenayaa insha Allah guuli barwaaqo hamiyadaada iyo amuraha leedin Ilaahay ku sahlo jazakumullahu khairan hada videoga in la inta soo daawanaysay jazakumullah aadiya qaali ugu taagteeda insha Allah waa inoo mar kale videoga in xiga jazakallahu khairan